kulan waana wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan daliyo dibadba idinka hayno oon halkan idinku soo gudbin doono haddii eeba yiraahdo qodobada wararkeena ugu doorana waxaa ka mid ah dagaalada ka socda dalka Ukraine iyo goobihii ay ku dambeeyeen iyo khasaaraha la kala dheefay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka socday caasimadda Kiev ee dalka Ukraine ayaa warkeena kaga bogan doontaan waxaad sidoo kale warkeena aad ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Australia oo si weyn uga hadlay xaaladda dalka Ukraine iyo dalal dhowr ah oo uu ka mid yahay Shiinaha oo taageeray dalka Ruushka iyo duulaanka uu ku qaaday dalkaasi haddaba ra'iisul wasaaruhu muxuu ka dhahay khudbadiisii uu ka jeediyey aqalka sare ee dalka Australia oo uga hadlay xaaladda dalka Ukraine warkeena ayaad kaga bogan doontaa waxaad sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan Ruushka oo la sheegay inuu bilaabay in khuburo dhanka dagaalka uga qayb qaadata ama taqaana sida loogu dhex dagaalamo magaalooyinka waaweyn in uu ka dhex doortay ama uu ka dhex qoranayo dalka Masar oo muddaba uu ku sugnaa halkaasi haddaba ruushku maxay tahay baahida uu u qoranayo dagaalyahanada dalka Masar ee uu uga qoranayo halkaasi warkeena ayaad kaga bogan doontaan waxaad sidoo kale warkeena aad ku maqli doontaan dagaalo ka dhacay deegaanka Axmaarada ee dalka Itoobiya oo u dhacay si lama filaan isla markaana iskaga hor yimaadeen ciidamo markii hore taabacsanaa ciidamada dowladda federaalka Itoobiya oo hadda maalmihii ugu dambeysayna ay khilaafyo ka soo baxayeen halkaasi dhimashada ayaa la sheegayaa iyo dhaawacba inuu ka dhacay halkaasi qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan balse haddii kusoo gaadho muuqaalka sii shargare oo la wadaag saaxiibadaada kaleeto mahadsanidin aan ku bilaabay dagaalada ka socda dalka Ukraine ayaa galay maalintii 13aad iyadoo dagaalka si isdaba joog ah uu u socday waxaa sidoo kale dagaalka ka qayb qaadanayay diyaaradaha gantaalada tuuraha ee aan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka iyadoo magaalooyinka waaweyn ee Mariupol iyo Kiev iyo Kharkiv ay dagaaladu si toos ah ay uga socdeen ciidamada Ruushka ayaa la sheegay maalmihii ugu dambeeyay inay ku sugnaayeen agagaarka magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine war ka soo baxay dalka Ruushka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalka Ukraine ay u fududahay inay dilaan isla markaana ay og yihiin meelaha uu ku sugan yahay hase ahaatee aysan doonaynin inay dilaan waxayna sheegeen inay doonayaan inay isagoo nool ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada Ruushka iyo wararka ka soo baxaya Ruushka ayaa ah mid khalkhal gelinaya dunida dhammaanteed iyadoo Ruushku uu marar badanna ku hanjabay inuu adeegsan karo hubka waaweyn sida lugneerka uu sameeyay dalka Ruushka ayaa siiyay digniin kama dambaysa dunida oo dhan isagoo sheegay in mas'uuliyiintan Ukraine ku qayliyaya in uu la xisaabtami doono isla markaana uu adeegsan doono hubkiisa wuxuuna sheegay in isagu waxba la dhanayn isla markaana halkan taal uu ku dhufan karo dalka Ukraine ayna ku filan tahay Ruushka ayaa waday maalmihii ugu dambeysay dadaalo waaweyn oo uu ku doonayay inuu qabsado magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine hase ahaatee waxaa la sheegay in ay ciidamada dalka Ukraine ay iska caabin ku sameeyeen isla markaana Ruushka ay ka yaabiyeen iyagoo ciidamadooda ay ka dhaqaaqayeen waayeen maalmihii ugu dambeeyay goobihii ay ku sugnaayeen muddo 3 maalin ciidamada Ruushka waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin agagaarka caasimadda dalka Ukraine ee Kiev hase ahaatee ay madaxa gelin laayihiin magaaladaasi waxayna sheegeen in ciidamada Ruushku hadda ay adeegsanayaan gantaalada ridada dheer oo la sheegay in ay khasaaro aad u tiro badan ay soo gaarsiiyeen caasimadda dalka Ukraine ee Kiev Ruushka ayaa la sheegay in hadda tabartiisu ay isku soo ururtay in gantaalada waaweyn iyo diyaaradaha uu adeegsado isla markaana duqeymo ba'an loo geysto caasimadda iyo dhammaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine waxaana la sheegay in ciidamadiisu ay sameyn laayihiin hore u socod ay ku galaan caasimadda iyo magaalooyinka waaweyn ee ay doonayeen markii horeba inay gacanta ku dhigaan Real Maraykana ayaa sheegay in Ruushka tan iyo 2015 uu ku sugnaa dalka Suuriya isla markaana uu galaangal u yeeshay waxaana la sheegay in saraakiisha sarsare ee ku sugan dalkaasi Suuriya in ay bilaabeen inay ka qortaan dagaalyahano yaqaana sida loogu dhex dagaalamo magaalooyinka waaweyn waxaana la sheegay in hadda la doonayo in saraakiil ama ciidamo dalka Suuriya u dhashay in la keeno dalka Ukraine si ay uga dhex dagaalamaan magaalooyinka waaweyn ciidamada Ruushka ayaa la sheegay inay ku adkaatay galitaanka magaalooyinka waaweyn isla markaana uu doonayo dalalka xulafada la inuu ka helo khuburo taqaana sida loogu dhex dagaalamo magaalooyinka waaweyn wuxuuna aad iyo aad uga baqayaa khasaarooyin ka soo gaadha halkaasi
ciidamada Ruushka ayaa cabsi weyn ka qaba xataa haddii ay galaan magaalooyinka waaweyn in ay ku jabaan isla markaana dhibaato ba'an loogu geysto. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia ayaa sheegay in aad iyo aad ay uga xun tahay xiriirka dhow ee Ruushka iyo Shiinaha ay leeyihiin, wuxuuna sheegay in Shiinuhu uu danaynayo ama uu doonayo sida uu beecshiradiisa iyo ganacsigiisa uu horay ugu sii wadi lahaa isla markaana aysan ku jirin wax bini'aadanimo ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in isbahaysiga Ruushka iyo Shiinaha uu yahay mid Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay isbahaysiga ARC ee Ruushka iyo Shiinaha in uu yahay mid ay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan isla markaana dunida aan ka farxinaynin. Ra'iisul wasaare Morrison ayaa dhaleeceeyay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine, wuxuuna ku tilmaamay mid fool xumo ah isla markaana u gogol xaarayo cawaaqib xumo inuu kala kulmo Master Putin. Australia ayaa toddobaadkii hore u ballan qaaday dalka Ukraine inay ku garab istaagi doonto 50 milyan oo dollar, waxayna sheegtay in 50kaasi milyan uu isugu jiro gantaalada ridada dheer iyo hubka noocyadiisa kala duwan iyo asaaska military. Taageerada Ukraine la sheegay in wadamo aad u tiro badan ay u ballan qaadeen ayaa ciidda ka badan, hase ahaatee wax soo gaadhay ay aad iyo aad iskaga yartahay iyadoo dagaalku hadda uu socdo maalintii 13aad. Afhayeenka aqalka sare ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay in aqalkaasi uu qorsheynayo sidii cunaqabatayn weyn loogu soo rogi lahaa dhaqaalaha dalka Ruushka, waxayna sheegeen in tallaabo walba oo lagu go'doominayo dalka Ruushka ay samayn doonaan isla markaana ay uga arrinsanayaan sidii go'doon loo gelin lahaa dalka Ruushka. Aqalka sare ee Mareykanka ayaa ku soo celceliyay in dhammaanba dunidu isku dhinac uga soo jeedsato isla markaana la cunaqabateeyo ama cunaqabataynba lagu soo rogo dalka Ruushka si loo yareeyo ama loo xadado dhaqdhaqaaqyada uu ka sameynayo dalka Ukraine. Dhinaca kale, dagaaladii ka socday dalka Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeysayba si goos-goos ah ahaa, iyadoo la sheegay in dagaaladu aysan sidii hore si ka duwan ay u socdeen isla markaana ay ahaayeen dagaallo ku dhufo ka dhaqaaqa, ayna kooxo hubeysan ay goonyaha iskaga hor imaanayeen. Dagaalada ka socda dalka Itoobiya ee qaatay 16 bilood ayaa maalmihii ugu dambeysay ahaa si qabow isla markaana ka duwan sidii hore, hase ahaatee dagaalada ayaa saameyn weyn ku yeeshay shacabka goobihii lagu dagaalamayay deegaanka Canfarta iyo deegaanka Axmaarada iyo Tigreege. In ka badan 2.2 milyan dad ah ayaa ka qaxay tan iyo intii uu dagaalku bilowday, waxaana la sheegay in dadkaasi ay kaalmo bini'aadanimo ay u baahan yihiin, iyadoo dadkaasi ay kala joogaan wadamada dariska la dalka Itoobiya. Isku soo duuduub, dagaaladii ka socday dalka Itoobiya ayaa ka duwanaa dagaaladii hore sidii ay u socdeen, waxayna ahayd ama ay u socdeenba dagaaladu si qabow oo ka duwan dagaaladu sidii hore ee ay ku bilowdeen. 24 saac ee ugu dambeysay waxaa laga maqlayay risaasta iyo hubka noocyadiisa kala duwan magaalo Abeni ahaa in ka badan 3 bilood oo ka tirsan deegaanka Axmaarada. Magaalada Moto oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa Fano oo garab u ahaa xilligii lala dagaalamayay TPLF ayaa la sheegay in dhexdooda ay ka qarxday isla markaana dagaal weyn uu dhex maray 24 saac ee ugu dambeeyay. Magaalada Moto oo ka tirsan deegaanka Axmaarada ayaa saacadihii ugu dambeysayba la isku adeegsanayay hubka waaweyn isla markaana iskaga hor imaanayeen ciidamada Fano iyo kuwa militariga dalka Itoobiya oo markii hore heshiis u ahaa sidii loola dagaalami lahaa kooxda TPLF oo muddoba la dagaalamaysay. La sheegay halkaasi in ay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba la kala gaaray, hase ahaatee dagaalka halkaasi ka socda ayaan weli qaboobin, waxaana maalmihii ugu dambeysayba isa soo tarahayay muranka u dhexeeya ciidamada Fano iyo militariga dalka Itoobiya oo markii hore ahaa isku dhinac isla markaana go'aankoodu uu ahaa sidii loola dagaalami lahaa loona soo afjari lahaa kooxda Tigreega oo muddoba dagaalo ka waday halkaasi. Dagaalka ka socda halkaasi ayaa weji kala yeeshay, iyadoo saaxiibadii ugu dhowaa militariga hadda uu dhexdooda meyd iyo dhaawacba uu yaallo, ayna isku adeegsanayaan hubka waaweyn ee markii horeba loo adeegsanayay ciidamada xoreynta Oromiya iyo kuwa kaleete ee Tigreega oo iyagana isku dhinac ahaa. daawadayaal, war waxaan daliyo dibadba idinka hayno waa naga intaa. warka xiga intaan ka gaaraynana waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.